xaafadani Soomaalidu ay ku badan tahay ee Biyaval isla markaana hoos tagta magaalada Cape Town ee gobolka Western Cape ee dalkani Koonfur Afrika ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay hoy u noqotay weeraro qorshaysan oo lagu bartilmaameedsanayay goobaha ganacsiga Soomaalidu ay ku leedahay deegaankani siqdi dhexe ee xalay ayaa kooxo hubeysan waxa ay u soo dhaceen goobtani ganacsi kadib markii ay figeeyeen ama ay xirxireen ilaaladii suuqani burcadani ayaa la sheegay in ay jibiyeen qayb kore iyo qayb hoose oo kamid ah dhismahani muraayadaha ka samaysan sida idin muuqata goobtani ayaa waxa ay isugu jirtay qaybo badan iyadoo ay qaybta dambana kaga taalay xawaalad ganacsi iyadoona gebi ahaanba la qaatay wixii halkaasi yeelay sida uu inoo xaqiijiyay mid kamid ah dadkii xawaaladaasi ka howlgali jiray dadkii dhamay sidaas ku soo galeen security meesha ilaalinay waxay ahaayeen labadin way soo galiyeen gudahay ku xirteen qoryo ku qabteen kadib meesha sare oo idina in airtime iyo alaaba lagu iibiyay tageen markii ay tageen waxay ka qaateen lacag aad u badan oo isugu jiro airtime iyo lacag cash ah way burburiyeen dhammaan agabkii oo wax ku shaqaysanayna sida laptopyadii oo ay qaateen qasnadii weyneed ee lacagta la gelin jiray amba airtime-ka waxyaabaha qaaliga oo qiimaha lagu shuban jiray way jibiyeen waxay wateen mashiinta wax lagu jaro oo korontada ah mashiintii ku jareen kadibna qasnadii sidii ku jibiyeen nasiib daro qasnadii umay soo wada suura galeen inay wada jibiyaan dhaca aad buu noogu soo badanay hadda maxay nagu noqotay masaajidka deeqayle ka yartay meel loo carar ma laha magaalada u soo cararnay online waad ku badbaadaysan lokoshimada ka soo tagnay haddana magaalada aan ku badbaadi laanahay ciidamada booliiska oo goor dambe soo gaaray ayaa baritaano guud ka sameeyay goobtani ganacsi mana jirto ilaa iyo iminka cid loo soo qabqabtay falkani dhacaahi Soomaalida magaalada Cape Town oo ay naftu kaga jirtay xaafadani Biyaval waa dhanka ammaanka ayaa iminka u muuqanaysa mid xaaladoodu ay faraha ka sii baxayso oo aysan jirin meel ay ciirsanayaan iyadoo ay ku soo badanayaan dableyda hubeysan oo dhaca u geysanaya goobahani ganacsi ee ku yaala xaafadani xasan kaafi maxamed shiri telefishinka caalamiga Home Cable Koonfur Afrika.